markaad tahay muuqaal sameeye waxaad u baahan tahay wax walba muuqaal sameyntaada kuu fududeyn karaa. sidaas darteed markaa shirkadda Adobe waxay barnaamijkeeda ay ku soo dartay features aad iyo aad u kala duwan markaasna caawin kara qofka video editor-ka ah. barnaamijkan ka hadlayo waa barnaamijka Adobe Premiere Pro 2025. sidaas darteed markaa dhammaan kama hadlayo updateska kala duwan ee ku soo dartay shirkadda Adobe barnaamijkeeda Adobe Premiere Pro, laakiin waxaan ka hadlayaa laba farsamo ee aad iyo aad muhiim u tahay inaad marka koowaad aad ogaato. waayo farsamadan waxay qaadan jirtay xoogaar waqti kooban ayay qaadan jirtay, laakiin maanta waa la soo fududeeyay. marka si aan kula wadaago updateskani muuqaalkani dhamayso. ugu horreyn marka waxaad soo furanaysaa Adobe Premiere Pro gaaga. markaad soo furato ugu horreyn marka sidaad u jeedid shaashadii aan wax ka daawan jirnay waxaa meeshaasi kooban lagu soo kordhiyay button oo markaasi ku jira laba shay. labadaas shay waa transform iyo crop. waa laba effect markaasi aan anaga caadi ahaan aan muuqaalada aan ugu soo dari jirnay. maanta tusaale ahaan ka soo qaadba update-ka koowaad wuxuu yahay dhanka iyo transform. dhankan transformna wuxuu inta badan la xiriirtaa box kooban markaasi ay kusoo kordhisay markaasi ay u bixisay properties. markaad transformka aad doorato isla markii meesha sidaad u jeedid waxaa kuu soo furmaya panel markaasi properties oo aad markaasi aad ka maamuli karto wax waliba. marka tusaale ahaan oo kale videogaaga haddii uu yahay mid oo geesihiisa black oo kale oo aadna rabto inaad shaashada aad ku buuxiso, halka marka hore waxay ahayd inaad tagto dhanka iyo effect controlka inaad tagto, laakiin haddeertaan meeshan sidaad u jeedid waxaa ku qoran fill oo taasina waxay kuu saamaxaysaa in markaasi aad screenkii aad muuqaalkaaga aad ku soo buuxiso. waana update markaasna kaa caawin kara wax waliba. sidoo kale aan u gudubno qodobkeeni labaad wuxuu leeyahay effectiga crop. mar walba muuqaalka waan kusoo duldayn jirnay, laakiin maanta meel fudud ayay soo dhigtay, taasina markaasna kuu suurtagelin karta meel walba muuqaalka ayay ka mid ah inaad cropping aad ku samayn karto. haddana waxaa sii dheeraa meeshani ayadoo markaasi crop aad ku samayn karto ayaad haddana meeshaad rabto ayaad ula leexin kartaa. halka markaad effect controlka aad ka maamuli jirtay effectigani waqti badan ayuu kaa qaadan jiray in aad muuqaalkaaga dhinaca markaas aad rabto inaad geyso. waana updates markaasna aad iyo aad loogu baahnaa ee shirkadda markaasi kusoo kordhisay. marka maanta waxaan jeclaystay muuqaalkaas kooban inaan kula wadaago. haddii aad tahay video editor ah farsamadani waad u baahan tahay oo ha moogaanin mar walbo isticmaal si markaasi projectiyadaada ay kuugu fududaadaan. haddii aad videogan ka faa'iidayna fadlan laagaree lana wadaagna asxaabtaada muuqaalkan si aygana ugeera faa'iidaystaan. haddii aad noogu cusub tahayna noogu soo biir adigoo taabanaya calaamadda subscribe-ka kadibna furanaya gambaleelka si ay kuu soo gaaraan muuqaal walbo aan soo gelino. waana ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. inta aan ku kulmi doono muuqaalka xiga waxaan idinkaaga tegi doonaa sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. waa inoo muuqaal kale. guuleysta. maca assalaama.